Warbixin qarsoodi ah oo ay diyaarisay dowladda Mareykanka isla markaana uu helay wargeyska The New York Times ayaa lagu sheegay in Ethiopia ay waddo olole nidaamsan oo ah isir sifeyn, iyada oo looga gabanayo dagaalka gobolka Tigray oo ah aagga ay inta badan gacanta ku hayaan maleeshiyada Amxaarada ee waqooyiga dalka Ethiopia. The New York Times ayaa sheegay in warbixinta oo la qoray horaantii bishan February ay si adag u qeexayso dhulka iyo guryo la bilaqaystay iyo tuulooyin cidlo ah oo 10,000 oo qof la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Sida lagu sheegay warkan oo uu qoray wargeyska The New York Times, warbixintan ayaa lagu ogaaday in saraakiisha Ethiopia iyo dagaalyahanada maleeshiyada xulafada la ah ee ka soo jeeda gobolka deriska ee Amxaarada, kuwaasi oo u soo dagaal tagay gobolka Tigray si ay u taageeraan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed, ayna si ula kac ah oo buuxda ay gacanta ugu dhigayaan gobolka Tigray, meel ay qowmiyadda gaar ah degto, iyadoo adeegsanaya awoodda abaabulan iyo cabsi gelinta ee uu dabada ka riixay ayaa lagu yiri Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Warbixintan ayaa sheegaysa in dadka qaar ay u qaxeen doorka ama ay si sharci darro ah ay ugu tallaabeen dalka deriska la ah ee Suudaan, halka qaar kalena la soo ururiyay oo si qasab ah looga raray gobol kale oo ka tirsan Tigray, sida uu qoray wargeysku. Xogayaha Amuuraha Dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray Sabtidii ku sheegay in Mareykanka uu aad uga walaacsan yahay warbixintan la xiriirta xadgudubka iyo guud ahaan xaaladaha ka sii daraya ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Colaadda hubeysan ee ka taagan gobolka Tigray ayaa galaafatay nolosha 10,000 oo qof, taasi ayaana keentay in 100,000 ay ka cararaan guryahooda. Gobolka oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 milyan oo qof ayaa waxaa soo food saartay cunno yari iyo biyo la'aan baahsan.